maalin uu markii uu booqasho ku tagay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa soo baxaya dhowr arrimood oo muujinaya damacyo suwan kuwaasoo ku wajahan arrimaha ayna kala qabaan dhinacyo shisheeye iyo Soomaaliba leh waana dhacdooyinka ku saabsan doonista dhinacyo kala jaad ah oo dhammaantood ku soo biyo shubanaya in laga faa'iideysto Soomaaliya waqtigan dhacdooyinka waxa ugu muhiimsan damaca kulmiyay Kenya Qatar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waxa ay dalalkaasi kala doonayaan in waqtiga xasaasiga tallaabo qancisa ka helaan madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisa dastuuriga ahaa ee baarlamaanku u idlaaday laakiin golaha shacabku ay sheegeen in muddo 2 sano ay u kordhiyeen hay'adaha dawladda Farmaajo waxa uu baahi weyn u qabaa in wada hadal laga furo arrimaha doorashooyinka kaasoo ay leeyihiin dhexdhexaadintiisa midowga Afrika waxa uu doonayaa inuu helo irid siyaasadeed oo furan oo ka celisa dhammaan faragelinta reer galbeedka laakiin faragelinta Afrika waxa uu doonayaa inay noqoto mid ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gudaheeda in lagu xalliyo Afrikana ay yeelato doorka isku keenida dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya Qatar waxa ay doonaysaa inay Kenya iyo Soomaaliya furaan albaabka wada hadalka waxa ay dooxo ka dhex aragtaa danaheeda siyaasadeed iyo dhaqaale isfahamka labada dal oo xulafo dhow ay la tahay waxa ay cadaadis ku saaraysaa Muqdisho dooxo in ay aqbasho shuruudaha uga imaanaya dhinacyadan oo dhan danaha ugu weyn ee ay Qatar ka leedahay inay Kenya hore uga iibsatay ayay tahay qayb ka mid ah ceelasha shidaal ee ku yaala badda Soomaaliya ee ay Nairobi doonayso inay qaadato waxayna taasi u maraysaa Qatar waddo kasta oo ay danteeda ku gaari karto dooxa waxa la rumaysan yahay inay taageero xooggan siisay Soomaaliya muddadii uu joogay madaxweyne Farmaajo waxayna dhawaan ka baaqsatay inay si toos ah uga hadasho arrimaha doorashooyinka gudaha ee Soomaaliya laakiin TV-ga Al Jazeera oo inta badan tabiya siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar waxa uu adeegsanayay erayo aysan jeclaysan fiila Soomaaliya waxaana uu muuqday mid gadaya siyaasadda isbedelaysa ee Qatar ee ku wajahan Soomaaliya Kenya waxay u aragtaa fursad siyaasadeed culayska hadda haysta Farmaajo ee ku wajahan tubta hanaanka doorashooyinka Nairobi waxa ay xulufo iyo saaxiib dawlad tahay qaybo badan oo ka mid ah maamul goboleedyada iyo mucaaradka si ay u fuliyaan danaha Kenya waxa ay muddo dheer ka shaqeynaysay arrinta ku wajahan in doorashooyinka dib loo dhigo isfaham uu imaan waayo dhinacyada siyaasaduna ay kala noqdaan kuwo kala oodan waxa cod wax gooya Nairobi hadda ay ku leedahay golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo golaha amniga ee midowga Afrika waxa ay doonaysaa inay labadaasi goobood noqdaan goobo ay uga aarsato Soomaaliya damaceeda waxa ayna doonaysaa in guuldarrooyin siyaasadeed oo muddooyinkii u dambeeyay soo gaaray Kenya hadda ay dhabarka u saarto Soomaaliya fursad kale oo ay aragtay Kenya waa in madaxweynaha Kongo nin ay saaxiib dhow yihiin Uhuru Kenyatta kuna noolaan jiray Kenya uu hadda yahay madaxweynaha bilaha ee midowga Afrika taana ay sii caawinayso damaca Nairobi ee ku wajahan boobka qayb ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ila diblomaasiyadeed waxa ay hoosta ka xariiqayaan in Kenya Kongo iyo Qatar ay u soo jeedaan madaxweyne Farmaajo inuu aqbalo in wada hadal laga furo arrimaha u dhaxeeya labada dal gaar ahaan arrinta sida weyn ay dalalkan isugu kaashanayaan waa dacwadda badda ee u dhaxaysa labada dal Farmaajo waxa uu dhawaan hoosta ka xariiqay in jiraan dalal badan oo cadaadis ku saaraya inuu wada hadal ka galo dacwadda badda si kursiga madaxweynenimada loogu sii hayo taasoo la rumaysan yahay in dalal ay ka mid tahay Qatar oo kaalin weyn ku leh arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka tahay qayb ahaan Soomaaliya waxa ay hore u joojisay xiriirka kala dhaxeeya Nairobi dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay rumaysan yihiin inay yahay tallaabo degdeg ku jiray taas laftirkeedu hadda waxa ay Muqdisho doonaysaa inay soo celiso xiriirkaas ugana badbaado arrinta ku saabsan kiiska dacwadda badda Nairobi waxa ay wadaa shuruud ku wajahan soo celinta xiriirka waana in dacwadda badda laga soo celiyo maxkamadda Hague taas ayay leeyihiin suuragal noqon maysa sharci yaqaanada maadaama hadda uun la sugayo oo kaliya go'aanka maxkamadda oo soo bixi kara bilaha noogu soo wajahan
farmaajo waxa uu iska diiday dalabka Kenya ee ku wajahan in dacwadda badda la soo celiyo qatar iyo koongana arrintan waxa ay u tahay dhabarjab weyn farmaajo oo ay ku cakiran tahay arrinta gudaha ee doorashada doonaya taageerada midowga Afrika iyo dalalka Carabta haddana waxa uu ka dhexgalayaa damacyada ishardinaya ee dalka Soomaaliya ka leeyahay Soomaaliya waxa soo baxaya isweydiimo ku wajahan sida ay fiila Soomaaliya uga badbaadi karto u hogaansaka waqtigan ee damacyadaas waxaana warar iyo xoglaba kala duwan ay tilmaamayaan in farmaajo wax kasta uu marayo sidii ugu dambeyn doorashada loo xalin lahaa laakiin arrinta badda uu ka taagan yahay meel adag oo in maxkamadda caalamiga aan laga soo celin halkaana laga sugo qaraarka u dambeeya ee yimaada Soomaaliya